iyagoo dadka ogaadeenaya ay isdhaafsanaya tahniyada iyo fariimo ku aadan bisha Ramadaan iyo waliba xuska maalinta qaranka ogaadeenaya sidoo kalena ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo dagaal qaraar kula jira maxaysatada gumaysiga Itoobiya ayaa iyana siyaabo kala duwan u qaabilay xuska iyo soo dhaweynta sanad guurada 26aad tan iyo maalmahani fooda inugu soo haya waxaa la filayaa in sidan oo kale meelo badan looga xusi doono gudoomiyaha Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa waxa uu barakada bisha Ramadaan awgeed iyo sidoo kale xuska sanad guurada halkani fariin kooban oo uga jeedinaya dadka muslimiinta gaar ahaan shacbiga geesiga ee ogaadeenaya wuxuuna gudoomiyuhu yiri sida tan bisha barakaysan ee Ramadaan oo bil khayr qabta waxaan Ilaahay ka baryahayaa in shacbiga reer ogaadeenaya guud ahaan gaar ahaan naftoodayaasha taageerayaasha xubnaha iyo dhammaan inta gobonimada iyo halganka ogaadeenaya taageerta inuu bishan barakaysan Ilaahay dambigooda u dhaafo naarta kuwa laga xoreynaya Ilaahay inuu kamid yeelo Ilaahay kuwa ugu yaboohay jannadii inuu Ilaahay kamid yeelo waxaan ka baryaynaa in bishan barakaysan ee Ramadaan qudradda in Ilaahay uu naga dulqaado gumaysiga Itoobiya ummadda reer ogaadeenaya oo xor ah oo dawlad cadaalad ah oo muslim ah ay maamushana Ilaahay inuu noo soo dedejiyo yaan Ilaahay ka baryaynaa waa himiladayada iyo diiladayada Ilaahayna waanu ka baryaynaa annaguna aad iyo aad baan u dadaalaynaa intaas ka bacdi sanad guuradii 26aad yaa hadda loo dabaaldegayaa oo jaaliyadaha iyo shacbiga reer ogaadeenaya guud ahaan naftoodayaal iyo shacbiga yaa loo dabaaldegayaa sida aynu la socono halganku wuxuu soo maray heerar kala duwan heerkii asaaska ahaa ama uu runtii qarsoodiga ahaa heer uu ahaa la ogaa oo caan ahaa hase yeeshee uusan umaad u soo caan bixin ilaa 90-yadii horaankeedii ayuu halgankani runtii yuu u diyaar garoobay ama uu u dhaqaaqay in uu barnaamijkiisa iyo qorshihiisa uu ku shaqeeyo intii ka dambaysay maalinba maalinta ka dambaysa horey buu tallaabo u qaadayaa halganku intaana gumaysigu wuxuu ku dadaalahaya mar walba inuu jallaafeeyo uu ishortaago maalmihii halgankani uu bilaabay in uu mataqaanaa ay ciidamada uu dhiso oo ciidamadiina ay duurka galeen isla markiiba gumaysiga Itoobiya waxay bilaabeen in odayaasha intay shiriyaan inay yidhaahdaan soo celiya wiilashiina oo wiilashaasi ayna dhaqaaqin mudayarka bacdi abridaharay ku shiriyeen dadweyne fara badan oo ay leeyihiin waxaanu idiin ogolahay inaanu waxaysiinaanu idiin ogolahay nimanka dhalinyarada iyo jabhadaas ha laga hortago hala soo celiyo ka bacdi rag siyaasiyiin iyo karanno oo dibadda ka tegay yaa loo diray ciidamadii jabhadii loo diray oo la yidhi soo celiya nimankaas soo celiya maalinba maalinta ka dambaysa qorshe gaara ayay dawladda Itoobiya ku dadaalaysay oo ay doonayso inay ku burburiso halganka gobonimo doonka Ilaahay mahadi mar kasta oo isku daydo inay mataqaanaa khilaafo u dhigto ama ay xuryaamiso mar walba halganku kacaan laba kaclayn buu kasii qaadayay shacbigu taageeradiisu sii xoojinayay ilaa maanta halganku horay buu u socdaa maantana wuxuu gumaysigu isku dayahayaa ama uu wadaa barabagaan aad iyo aad u fara badan oo raqiisa oo aad moodo rajala'aan inuu yahay ama quusasha ay ka muuqato gumaysigii Itoobiya madaxdiisu hadda waxay bilaabeen inay yidhaahdaan shacbiga reer ogaadeenaya waa qabaa'il hebel dagaalku ku jira qabiil hebella dagaalka kuma jiro waa quustii ugu dambaysay waa markay Muqdisho weerareen siday ay odhan jireen qabiil hebel baa nala dagaalamahaya qabaa'ilka kale nalama dagaalamahayaan waxa weeye waxaa ka muuqanaysa quus iyo rajo xumo iyo hawshoodii inay mataqaanaa ay fashilan tahay halganku maalintii ugu xoog badnaa ayuu marhayaa xag ciidan iyo xag abaabul iyo wacyigelin iyo xag siyaasad dibadeed waktiguu ugu xoog badnaa buu marhayaa
shacbiga reer ogaadeenaya midnimadiisu waqtigay ugu fiicnayd buu marahayaa hoggaanka iyo mataqaanaa halganka ogaadeenaya ama jabhadan oonalaf la yidhaahdo hoggaaninteeda ciidamadeeda xubnaheeda taageerayaasheedu maanta ayay midnimadooda ugu adag tahay awoodoodana ugu badan tahay xiriirka iyaga dawliga maanta ugu sarreeyaa meelihii etoobiya ay mataqaanaa awal hore ay shirqoolka iyaga ka dhigi jirtay maanta meel walba waa lagu gelaynaa waananu ka saaraynaa ilaahay maadaama ilaahay hadduu allayno waxaanu rajaynaynaa guulo aad iyo aad u ballaaran inaanu gaadhno sanad guuladan sana 26 dhexdeeda guulo aad iyo aad u fara ballaaran inaanu insha allahu gaadhno ama kuwa militariya ama kuwa mataqaanaa siyaasadeeda ama kuwa wacyigelinaya abaabul dadweynaha marka aad iyo aad baanu mataqaanaa u rajo fiicannahay waxaan ciidamadayada iyo shacbigayaga iyo jaaliyadaha iyaga iyo taageerayaasheeda dhammaan u jeedinaya ama aan leeyahay ramadaan kariim guul baan inoo rajaynayaa sanadkiisa aynu ku gaadhno halla israaciyo farnimadii way soo dhowdahay halla adkayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay haddii aan intaasi ku dhaafno hadalkii koobnaa ee admiraal maxamed cumar cusmaan guddoomiyaha jabhadda ONLF ugu talagalay bisha ramadaanka iyo sanad guurada 26aad ee ONLF waxaa maalnimadii sabtida ahayd oo ay taariikhdu ku beegneyd 14 bishani 8aad shir isugu timid guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya kulankani ayaa waxaa laga wada hadlay qodobo muhiima kuwaasi oo ay madaxdu si aad u gorfeeyeen isla markaasina ka soo saareen go'aamo wax ku oola waa kan saaxiibkay Cabdinuur Sheekh Maxamed oo nuxurkiisa inoo soo kooba xubnaha guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa 14kii bisha 8 aynu ku jiro oo ku beegnay sabtidii la soo dhaafay isugu yimid shir uu shir gudoominayay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya admiraal maxamed cumar cismaan shirkaas ayaa lagaga hadlayay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen qiimaynta xaaladda guud ee halganka iyo halgamaaga jawxo qiimaynta iyo fulinta barnaamijyadii iyo qorshayaashii horey loo dejistay qiimaynta waayaha iyo duruufaha saamaynta ku leh halganka ee gobolka iyo dunida kalaba qiimaynta barnaamijyada dhagareed ee keligii taliya zanaawi uu maleegayo in uu ku jahawareeriyo halganka xorriyadoon ee ogaadeenaya ka soconaya iyo waliba arrimo kale oo muhiima shirkaas ay yeesheen guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa qiimayn dheer ka bacdi waxaa la isla qiray in dhammaanba qorshayaasha howlaha halganku ay u socdaan habkii loogu talagalay guda iyo dibadba iyo sidoo kalena la soo hoyiyey guulo iyo horukac lagaga guulaystay dhagarqabaha gumaysiga Itoobiya dhanka kale shirkan ay isugu yimaadeen xubnaha golaha fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa la isla gartay in dhammaanba dacayadaha gumaysiga ee quuska iyo rajaxumadu ka muuqato ayna saamayn ku yeelan doonin geedi socodka halganka jawxo ay hogaaminayso waxaa si fiican looga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee geeska Afrika gaar ahaan xaaladaha cusub iyo isbedelada ka jira gumaysiga Itoobiya doorasho beeneedkii uu xisbi ku sheega EPRDF marorsaday kadib oo uu taliska wayaanuhu qas iyo lab ka sii qaaday ku amar ku taagleynta uu shucuubta uu gumaysto ku hayo sidoo kale markii uu shirku si mug leh ooga dooday ajandihii shirka waxa uu guddiga fulinta ee jawxo uu bogaadin u soo jeedinayaa shacbiga geesiga ee Soomaalida ogaadeenaya ciidanka qalabka sida ee xoreynta ogaadeenaya jaaliyadaha qurbaha ka halgama iyo ururada bulshada rayidka ee sida tayada sare leh u soo hoyiyay guulaha waaweyn ee lagu naaloodo waxa uu guddiga fulinta ee ONLF cambaaraynaya fikirka gumaysi ee ah qaybi oo xukun ee keligii taliya Mala Zanaawi uu ku hadaaqay taasoo muujinaysa aqoon darrada ka haysa ururka jawxo iyo guud ahaanba halganka shacabka ogaadeenaya isla mar ahaantaana muujinaysa in maalmaha u hadhay xukunkiisa dulmiga ku dhisani ay tirsan yihiin guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxa ay ugu baaqayaan ururada mucaaradka iyo kuwa hubaysan ee ka soo horjeeda dulmiga gaamuray ee xisbiga ku sheega TPLF inay iska kaashadaan soo dadejinta iyo israacinta burburinta awoodda wayaanaha ururka ONLF waxa uu wadatashi ku salaysan habkii la iskaga kaashan lahaa ka hortagga cadowtinimada wayaanaha la bilaabi doona ururada mucaaradka ku ah xukunka kalitaliska ah ee wayaanaha golaha fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya markay qiimeeyeen guud ahaan siyaabihii kala duwanaa ee jaaliyadaha ay uga hortageen shirqooladii gumaysiga waxay shacbiga Soomaalida ogaadeenaya ugu baaqayaan in ay mar walba ka feejignaadaan shirqoolada cusub ee uu gumaysigu u soo maleegayo
oo wejiyo badan leh iyadoo uu adeegsanayo ashkhaas huwan magacyo kala duwan oo guddiga fulinta ee Jowhar ku bogaadinaya dhammaanba shacabka Ogaadeenaya meel ay joogaanba in ay dardar cusub geliyaan si horumarinta hawlaha halganka mahadsanid Cabdi Nuur hoggaankeena sare iyo horseedkii shacabkeenu inay horumar keeneen waa hubaal xaqiiqa hadafkii ummadeenu hay'adaha adduunka iyo aan ku horyaala dhaxal loo halgamayay soo hormoodkii maantaba guushii ma soo hoyin